أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. walaalayaal maanta dunida aynu noolnahay duruufaha caafimaad iyo dhibaatooyinka ka jira dowladihii waaweynaaye awoodda sheeganaya ay la daara dhacdaynayaan way u jeedaan. arrintaas waxay ku tusinaysaa oo tusaale cad ay u tahay dacfiga iyo taagdarrada aadamaha wa tacaala awooddiisa. saamaynta xanuunkaa yar ee ilmaqabatay ah ee ishaba aan lagu arkaynin saamaynta oo adduunkii oo dhan ku yeeshay, sida diyaaradihii loo joojiyey, sida adduun weynihii isugu furfurnaa loo kala qoqobay ee loo kala tiimay, sida cawaasimtii adduunka ugu waaweynaa waxa weeye loo cileeyey oo loo mariyey oo loogu kala yaacay, sida dowladihii adduunka sheeganayay ee isku magacaabay inay iyagu yihiin duwalulmixwal walmirkas, dowladaha adduunka awoodaha waaweyn la baxay ee magacyadaa qaatay, sida ay walaaca iyo walaahawga iyo walbahaarka ay uga muujinayaan xaaladda taagan waynu la soconnaa weeye. ilaahay subxaanahu wa tacaala dacfiga aadamaha isagoo tilmaamaya inkastoo awoodda u isbidaa iyo u ismiciiniya ay leeg tahay, nimankii waxa weeye gaaladaha markay dhaheen waqaaluu man ashaddu minna quwa, yaa naga awood badan. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi walam yarow anna allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa. ilaaha iyaga abuuray ee nafta geliyey awoodda ay sheeganayaan la siiyey miyaanu ka awood badan? haddii xaaladda caafimaad ee adduunku ay saa tahay, waxay la tahay sidii looga gaashaaman lahaa oo laysaga ilaalin lahaa. khudbaddii horena culummadu waa kaga hadashay, dhakhaatiirtuna wacyigelin badan waa inoo sameeyeen. waxaynu ka hadli doonnaa inuu qofku is-ilaaliyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa isku ilaaliyo, si ilaahay isaguna uu ilaaliyo oo uu dhowro weeyaan. nebi moxamed sal alla alay wasalam maalin maalmaha ka mid ah, isagoo cabdilaahi ibnu cabbaas oo in adeerkii ahaa wiil yaroo dhallinyaro ahaa isagoo daba socda ayuu ku soo jeestay. markaasuu uhi yaa qulaam innii ucallimuka kalimaat, wiil yahow yari waxaan ku barayaa weedho. waa weedho koobkooban oo yaryar oo ilmaha yar maskaxdiisu ay weelayn karto oo qaadi karto. ha yeeshee mid kastoo weedhaha ka mid ihi macnaha ay leedahay iyo nuxurka ay ku fadhido hadduu qofka muslimkii uu fahmo, noloshiisoo dhan bay ku filantah. noloshiisoo dhan ayay u nidaaminaysaa oo waxa weeye ay ku filan tahay. nebigu wuxuu yidhi ixfad illaaha yaxfadka, war ilaahay ilaasho, ilaahay saa ku ilaalinaye. ilaahay ilaasho hortaadaad ka helaysaaye, meel dheer ka dooni maysa. haddaad wax weydiisanayso cid, ilaahay weydiiso. haddaad cil kaalmaysanayso, ilaahay kaalmayso. waxaad ogaataa haddii aadam oo dhani isu yimaado isu habar wacdo inuu adiga wax ku taro oo uu ku taakuleeyo, waxaan ilaahay qorin oo ay ku awoodayaan ma jirto, oo ilaahay ku ogolaano xagga ilaahay laga soo fasixin. haddii aadam oo dhan isu tago oo adiga waxyeeladaada ay isugu tagaan inaanay waxba kuu geysan karin waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu qorin. waxa adduunka ka dhacaya ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinkuu abuuray buu qalinka ku qoray, qalinkii waa la qaaday oo qoritaankii waa joojiyey, warqadiina waa engegtay oo wixii ku yaalay ayaa ku engegay oo aan laga tirtiraynin oo rumoobaya oo dhacaya. xadiiska fiqaraadka iyo faqradaha uu ka kooban yahay haddaynu mid mid u dul istaagna ka dhammaan mayno, laakiin erayga ugu horeeya bal aynu dul istaagno wax yar. ixfad illaaha yaxfadka, ilaahay ilaasho, alla isagaa ku ilaalinaya. nebiga sal alla alay wasalam
dee waxyaabaha uu dadka kaga socnaa waxaa ka mid ah isaguba uu sheegay uctiitu khamsan lam yuctahunna axadu min alambiyaai qabli 5 arrimood oo cid kala daaye ambiyadii iga horeysay aan la siinin ayaa ilaahay ugu deeqay nabiga sallallahu alayhi wasallam 5 arrimood waxaa ka mid ahaa uctiitu jawaamic alkalim weeraha wax ururiya oo iyagoo kooban oo urursan haddana macno weyn xambaarsan ayaa ilaahay siiyey waayo ummad buu la hadlayay nabigu aan isku af ahayn oo isku diin ahayn ayuu diinta islaamka ku mideynayay ummad aan isku dooq iyo dareen ahayn oo isku midab ahayn ayuu la hadlayay erayo kooban oo macno weyn xambaarsan ayaa ilaahay ugu deeqay erayada waxaa ka mid ah ihfadillah yahfadka ilaahay ilaasho waa ku ilaalinaya ilaalinta ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ilaashanaysaa maxay noqonaysaa in ilaahay xuduudiisa la ilaaliyo oo sohdintiisa la ilaaliyo oo inta xalaasha uu kaaga dhigay ee ballaaran aad ku eekaato oo waxa weeye aadan u tallaabin xuduudda xaaraanta ee kooban wey aad iska ilaalisid waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xifdintiisa soo gelaya waxa weeye in salaadii la ilaaliyo oo waqtigeeda lagu xifdiyo oo shuruudeeda lagu xifdiyo in badan baynu arkayn kaanaa quraanku isagoo ammaanaya walladina hum ala salaatihim yuhafidun kuwa salaadooda ilaaliya bal iyadoo ilaahayna amrayo uu leeyahay xaafidu ala salawaati wa salaati alwusta war salaadaha ilaaliya oo xifdiya oo xil iska saara iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay waxyaabaha la ilaalinaya la xifdiyayo waxaa ka mid ah waysaqaadka iyo tahaarada oo had iyo jeeraale astaan waxa weeye qofka muslimka lagu yaqaano adduunka marka la jooga ah aakhirana astaanta lagaga soocaya gaaladii ee waxa weeye darka nabiga sallallahu alayhi wasallam la isugu ogolaanayo waxa weeye waa weysada nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaaday walaa yuhaafidu ala alwudu'i illa mu'min waysaqaadka ma ilaaliyo oo ma xifdiyo qof aan mu'min ahayn ma ilaaliyo weeyaan marka weysadii baa waxyaabaha la xifdiyay la ilaalinaya kamida waxyaabaha uu quraanku sida gaarka u sheegay la ilaalinaya waxa kamida dhaarihi oo ilaahay uu leeyahay waxfadu aymaanakum war dhaarihiina xifdiya oo marka hore si fuduha ku dhaaranina oo waxaad been ka sheegaysaan ha ku dhaaranina oo magaca ilaahay weyneeya oo wixii ballan iyo wacdi aad ku gasheen oo magaca ilaahay leedinku aaminay guta waxfadu aymaanakum ayu ilaahay subhanahu wa ta'ala leeyahay waxa kale oo si gaar ah laynoo faray inaynu ilaashano xubnaheena oo dhan inaynu ilaashano oo cagihii iyo lugihii iyo maqalkii iyo araggii iyo xubnihii kale oo dhan inaynu ilaashano nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ilaahay oo sida uu mudan yahay looga xishoodaa waa inaad ilaashato madaxa iyo waxa ku hareeraysan caloosha iyo waxa ku gadaaman inaad xifdiso way culimadu waxay dhaheen madaxa iyo waxa ku hareeraysan ee la ilaalinaya waa carabkii waa araggii waa maqalkii wixii xaraana laga ilaalinayo way carabka oo halisnimadiisa leh oo nabi sallallahu alayhi wasallam uu kula talin jiray saxaabada kuffa alayka hada warka iska qabo iska ogow uu dhihi jiray weeyaan ayaa la xifdiyay calooshii baa la ilaalinaya waxa laga ilaalinaya arinta koobaad wax xaraan inay galaan baa laga ilaalinaya oo xoolaha boolida ah ee xaraanta baa laga ilaalinaya oo laga xifdiyaya qalbiga ayaa la ilaashanayaayo isagana la ilaalinaya ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa'lamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu war ogaada ilaahay subhanahu wa ta'ala waa idin sir ogyahay oo waa idin calool ogyahay uurkiina waxa ku jiro ogyahay ee ka digtoonaada way in caloosha iyo waxa weeye hoosta waxa lagu qabsanayo qalbiga lagu qarinayo in waxa weeye la ilaaliyo oo waxa weeye aan ummadda muslimiinta xumaan waxa weeye loo qaadin ayaa xifdinta ilaahay subhanahu wa ta'ala kamida xifdinta waxa kamida in waxa weeye xubinkii taranka la ilaaliyo nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay man yadmanu lima bayna lahyayhi wa bayna rijlayhi adman lahu aljanna war labadiisa daan ama labadiisa qowlal yaa ii damaano qaadaya iyo labadiisa lugood inta u dhaxaysa inuu ii ilaaliyo oo aanu damaano qaadaa janno ayuu nabi sallallahu alayhi wasallam leeyahay xubnihi baa la ilaalinaya
xubinkii taranka la ilaalinaya afkii iyo ibtii baa la ilaalinaya xaaraanta laga ilaalinaya waa maxallu shahwa qofka aadamuhu meelaha ugu daran ee uu u dhinto ama waxa weeye uu u seego karaarka waa afka iyo ibtaa wey waa labada maxal ee shahwada wey waxay culimada salafka qaybtood sheegeen waxay ugu horeeyay nabi ilaahi aadam markii adduunka la keenay lagala hadlay wuxuu ahaa ihfad farjaka wala tad'hu illa fi halal xubinkaaga ilaali oo meelaan xalaal ahayn ha dhigin waa arin halis weeyeen ilaahi subhanahu wa ta'ala sidaa hadii loo ilaaliyo oo wixii uu faray xuduudiisa saa loo xifdiyo maxaynu ku helaynaa ihfad illaha yahfadka xifdiga ilaahi baad ku helaysaa ilaahi wuxuu ina leeyahay awfu bi'ahdi وفي بعهدكم وروحان idinkula ballamay ii oofiya ana waadii oofinaya ballanqaadkayga ilaahay marka waa ina xifdiyaya adduunku inoo xifdiyaya nafteenu xifdiyaya wixii dib ku ah oo dhan buu ka xifdiyaya waxa caafimaadkeenu inoo xifdiyaya ilmaha ayuu inoo xifdiyaya wax alla wax kasta oo walwal iyo warbahaaraad ka qabtay oo aad u baqaysay oo aad ka yaabaysay inay baylah ka noqdaan ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa ku xifdiyay awaamirta ilaahay ku siiyay fartoonka aad fartoomayso iyo waxa ilaahay ka reebay ka tagida aad ka tagayso waa buundooyin waaweyn oo aad dhisanayso oo waxa la wixii baylah iyo bugtaba ka ahaa aad ku dhowranayso ku ilaashanayso weeyaan ihfadillaha yahfadka ilaahay wax kasta waa ku ilaalinaya ilaahay wuxuu leeyahay aayadda quraanka lahu mu'aqibat min bayni yadayhi yahfazunahu من بين يديه ومن بين يديه يحفظونه من خلفه وحويه إلهي وحليه ملائكة سعيد بذا وآدمها يسب الدشة واردية قاربي كهيا يحفظونه حفظي حراسه أي كهيا وي عبد الله بن عباس وحليه تري إلهي أمر وأمرين أي كو إلهي حق هرية حق الدبابة وكسعدان قدرك إلهي مركو يمادنا وخلوا عنه ويبرنين يانوي ilaahay ubadkiibu ku xifdiyaya xubnahaagiibu ku xifdiyaya caafimaadkaagiibu xifdiyaya baad culamaa salaf ya waxay arkeen maalmaha kamida nin odaya oo daa oo tabaalaysan oo indhala oo waxa weeye taagdarra ka muuqato markaas ay dhaheen hada dayaca Allah fi quwwatihi fadayahu fi dha'fi kaas ma u jeeda darxumada iyo dalanbaabiga ka muuqda ilaahay buu dayacay markii uu awood lahaa markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala isna maanta dayacay weeyaan marka xifdiga ilaahay inuu adigana ku xifdiyo ayaa lagu halaa ubadkii baa ilaahay kugu xifdiyaya subhanahu wa ta'ala diintii baa ilaahay kugu xifdiyaya ubadkii buu kugu xifdiyayaayo balu fiirso qisada quraanku inoo sheegayo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka adeejiyay nabi ilaahi Muusa alayhi salaam wuxuu kale ka adeejiyay adoonka ilaahay saalix ahaa khadar ayuu ka adeejiyay muxuu uga adeejiyay wiil yar laba wiil oo yar oo aabahood uu nin saalix oo wanaagsan uu ahaa inay u khidmeeyaan oo u shaqeeyaan oo maslaxadooda ay ka taliyaan ayaa ilaahay u diray uga adeejiyay markii waxa weeye darbiga ay toosiyeen ee kaydkii ku hoos aasnaay ilmihii yar uga soo saareen waxay dhaheen wa kana abuhuma salihan aabahood baa nin wanaagsan ahaa in ilaahay u diro oo ku ilaaliyo oo ku xifdiyo nabi ilaahi iyo adoon saalixa oo ka adeejiyo waxay ku heleen salaahu abayhima aabahood baa wanaagsana oo waxa weeye saalix ahaa marka salaaxa iyo xifdiga ilaahi subhanahu wa ta'ala ubadkiibu ku xifdiyay qisal la yaab leh gabadha la dhaho Sulaym radiyallahu anha ayaa ninkeedii dhintay markaas waxa uu yimid nin la dhaho Abu Talha guur buu ka soo doonay markaas waxay tii ni'ma rajul anta la turaddu min fiican oo aan la celin oo guur loo diidin baata hayeeshee mid baa jirta laakiinka rajulun kaafir gaal baata oo xilayma ka qabto hadii aad soo islaanto waan ku yeelaya meherkaygana islaamnimada islaamka soo gashay baan ka dhigaya bal gabadha hanka ku jira iyo wanaageeda fiirso sidii buu ku soo islaamay wuu guursaday ilaahay wiil buu ka siiyay wiilkii xanuun baa lagu ibtileeyay
oo uu xanuunsaday maalmaha kamida isagoo soo gadoomay oo shaqadii iyo waxa weeye shaqa maalmeedku ka soo gadoomay ayuu habeenkii ku yiri ka waran wiilkiiseeya ilmahaygii ka waran markaas waxay tiri sakana ibnuka ilmahaagi waa xasilay oo waa degay wuuna dhintay ilmihii markaas waxay samaysay way isu diyaarisay وعشان في عم بي أسميس نفتيدنا ويتهيئ أي سوي ديار سوي هذا مركو دنتي سجوتي ودقي وحوي لابهان يمورالهان يمسكحهان ودقي ويلكي ودقي أي كتري وحسلويه شيء أهان ودقي وعنا يعود وحي كلامه وقاطي أي لحظة مركز وحي كتري هديبة وحوي عارية لقصية دبادنا waxa weeye ninkii laha uu ka ceshado ma ku qanacsan ma u celinaysa markaas uu yiraahdo waan u celinaya naftaadu iyadoo ku qanacsan tahay waliba ma u celinaysa hayo anoo ku qanacsan oo raali ku abaan u celinaya wiilkeen ilaahay baa ina siiyo inoogu deeqay haddana isaga qaatay oo dhintay sidii ku sabray nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ayuu qisadii u sheegay habeenkiina waa kuwaas oo way isbarakaysteen النبي صلى الله عليه وسلم توقست لي أي وحدي بارك الله في ليلتكما إلهي هبينكينا هايدين بركايو وإلمها إذن كردنتي إلهي إذن كقاضي وحوية أتكو سميرتان إلهي أتكو حفدين وكو إلاشتين أمر كيسية سدو الربي مصيبة مركي دعضو إلهي سايدين بركاي ويلبيقاضي مركزتو النبي صلى الله عليه وسلم ومقلوين يدودو دهي ويدين جري واي wuxuu dareensan yahay waxa weey Ilaahay subhanahu wa ta'ala awilka fiicana uu ka siin doono ilmihi hore ay ka sabreen hadii ay umushay nabi sallallahu alayhi wasallam baa loo keenay waxa weeye uu dhamxanagay oo timir buu carabka u mariyay waxa weeye waa barbaari Abdullah baa loo bixiyay nabi sallallahu alayhi wasallam ku magacaabo Abdullah wuxuu dhalay 10 wiil ayaa Ilaahay ka ayuu dhalay tobankiiba 10 caalim oo cilmiga wariya oo ummadda waxa weeye anfacay ayay noqdeen waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala xifdigiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintu ku xifdiya hadaad xifdido inaad luntu ka ilaalinaya marka hore waxa weeye kugu ilaalinaya markaad dhimanayso ayuu khaatimo khayrka ku waafajinaya waxa loo baahan yahay walaalayaal inaynu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaashano in waxa weeye duruufaan adaga jira in Ilaahay la isu bihiyo oo Ilaahay loo noqdo oo loo toobad keeno oo ducada la badiyo oo inagu dhexdeena isu naxariisano oo waliba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inagu waa inoo nimceeyay waxa maanta adduunku ka qaylinayo ilaa hadda Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma hada ka gaadhay inagu caafimaad baynu ka haysanaa Ilaahay naxariistii cirku inoo shubay roobkii inoo ugu daray waxa weeye bishii Ramadaan oo barakaadkeedu fara badan yahay ugu soo socda waxa loo baahan yahay in la diyaar garoobo oo qalbiga la culo oo la dhaqo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala la qaabilo oo inagu waxa weeye aynu isu danqano oo kuweena danaysan daryeelno oo waxa weeye dhibaatooyinkeena kala gaaraya isu dulqaadano ayaa loo baahan yahay walaalayaal الله وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبي